xukuumadda Somaliland ayaa waxa ay soo saartay awaamiir ku socota ganacsatada badeecada kala soo dega tikada magaalada Berbera. Waxa ay Somaliland ku amartay ganacsatada inay u hoggaansamaan go'aankii ka soo baxay shirkadda DP World ee tikada maamusha, kaas oo ahaa in la kordhiyay lacagaha laga qaadayo ganacsatada konteenarada alaabaha ku keensada. xilli maalmihii dambe ay cabanayeen ganacsatada wax kala soo degta tikada magaalada Berbera ee Somaliland, isla markaana ay ka cabanayeen maamulka shirkadda DP World ee maamusha tikada magaalada Berbera, ayaa waxa arintaasi maanta ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee maamulka Somaliland Maxamed Xasan Sacad. waxa uu sheegay in Somaliland ay aqbashay warqadii cabashada ahayd ee u soo gudbisay shirkadda DP World, isla markaana ay tahay mid saxan sida uu sheegay wasiirka. sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in ganacsatada loogu baahan yahay inay u hoggaansamaan amarka ka soo baxay shirkadda DP World ee maamusha tikada Berbera. cabashooyin istabajooga oo ka yimiday DP World lana xiriira service-ka ay qabtaan. markaan eegnay aad u fiirinay, markaan la tashanay wasaaradda maaliyadda, waxa caddaatay DP World dacwadda ay soo jeediyeen ay tahay tusax. annagoo eegayna markii wax lagu dhawaaqo culayska uu leeyahay, DP World waxaan ka dalbanay dalabaadkooga inay 2 jeer u kala gooyaan, oo ah bishan maaris 12 laga bilaabo tafaariiqdoodu ay noqoto halkii ay 7,000 ka ahayd 8,500 oo shilina halka dollar. waxaan amar ku siinaynaa ganacsatada alaabteedii kala bixila boorka iyagoo ku andacoonaya arrintan in ay si degdeg ugala baxaan boorka. hadday ugala bixi waayaanna waxaa xaq ku noqonaya mutaysanayaan damage iyo waliba ganaax. waayo waxa weeyaan qofku hadduu wax sharciga waa maalmarsan aw la yimaado loo ogolaano dee dembi bay ahaan lahayd. sharci weyn arrintani waa in sideeda loo fuliyaa. tan iyo markii ay la wareegtay shirkadda DP World maamulka tikada magaalada Berbera, waxa inta badan uu khilaaf soo kala dhaxgalay ganacsatada wax kala soo degta tikada magaalada Berbera ee Somaliland iyo maamulka shirkadda DP World. xilli ay dadka dhibaatooyin kala duwan ku haystaan deegaanada Al-Shabaab ayaa ka maamulaan qaybo ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya iyo maamulka gobolka Galgaduud. waxa uu dawladda dhexe ugu baaqay in laga gacan siiyo la dagaalanka Al-Shabaab qaybaha ay ka joogaan deegaanada Galmudug oo dadkii shacabka ah badi ay ka soo hayaameen, kuwaasi oo soo gaaray magaalooyin ka tirsan deegaanada Galmudug iyaga oo wata caruurtii ay dhaleen. gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale waxa uu sheegay in haddii Al-Shabaab laga xoreeyo deegaanada Galmudug ay ka joogaan ay si badanayso dhibaatada dadka shacabka ay ku hayaan, sida uu hadalka u dhigay. fariinta aan u diray waxay tahay gobolku aad ogtiina waqti dheer dagaalka waa lagu jiray shabaab, haddana waa diyaar, laakiin dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay sidii deegaanada dhibaatada ay ku hayaan shabaab sidii looga xoreyn lahaa inay gacan naga siiyaan. qaybaha kala duwan ama hay'adaha kala duwan ee dawlad goboleedka Galmudugna waxaan leenahay ha loo istaago dadkaas sidii ay deegaanadoodu si nabad ugu noqon lahaayeen, inay mar walba marti noqdaan oo taagnaadaan duur meeshan kuma haboona. waa dad ku soo barbaaray oo ku weynaaday oo beera lahaa oo xoolo lahaa, waxoodii oo dhan banaanka uga soo baxay. sidii ay dadkaasi dib noloshoodii iyo deegaankoodii ugu hanan lahaayeen inaan kala shaqeynaan ku baaqaya. gudoomiyaha ayaa sidoo kale shacabka ku sugan Dhuusamareeb ka codsaday in la caawiyo dadkii ka soo barakacay deegaanada Al-Shabaab ka joogaan gobolka Mudug ee soo gaaray dhawaan magaalada Dhuusamareeb. dadkaas marka in loo gurmado hay'adaha samafalka ee gobolka jooga, waxaan ugu baaqaynaa inay si dhaqso ah arrintaas ay jawaab uga bixiyaan, jawaab degdeg inay ka bixiyaan. dadkaas soo barakacay ee dhibaatada ay haysato sidii ay hoy u heli lahaayeen, cunto u heli lahaayeen, waxbarasho iyo dibadejin ay u heli lahaayeen. dhammaan hay-adahana sidaasaan ugu baaqaynaa. dadka muslimiinta iyo ganacsatada iyo dadka wax haysta, waxa ilaahay idin dhiibay waa imtixaan, ilaahay waa idinku imtixaanaya. midka la weysiiyey ee aan waxba la siina iyadana waa imtixaan. iyaguna dhibaatada ku dhacday ha ku sabraano, dadka wax haystaana ha u gurmadaano. maamulka Galmudug
iyaguna kaalintooda ha qaataan ayaan leenahay insha Allah kaalinteena aan qaadanaynaa. saraakiisha ciidamada xoogga ee ku sugan gobolka Bakool iyo maamulka gobolkaasi ayaa sheegay inay dileen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab howlgal ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool. deegaanada howlgalka ay ka sameeyeen saraakiisha ciidamada xoogga ayaa waxaa ka mid ah deegaanka ceel la helay oo qiyaastii 2 kiiloomitir u jirta dhanka galbeed degmada Xudur ee gobolka Bakool. gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo aan la hadlay waxa uu ii xaqiijiyay in dagaal ka dhacay deegaankaasi ay ku dileen ragaal magaciisa uu ku sheegay Maxamed balse uu sheegay magaciisa afgarashada al-shabaab loo yaqaano Abu Yahye una qaabilsana deegaanada gobolka Bakool. aruurinta waxa uu ugu yeeray zakawaadka al-shabaab ay ku tilmaamaan. waxa uu sheegay inay si weyn dadka deegaanka ay ugu farxeen dilka loo geystay ninkaasi. maalmihii ugu dambeeyay gobolka Bakool waxaa ka socday howlgallo si wadajir ah ay u sameynayeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. maamulka Xudurna waxa ay tilmaameen inay sii wadi doonaan howlgalladan ay ku baacsanayaan al-shabaab.